حق السياسة ده ودنكي horta saddex xisbi qaran maanta jira xisbigada wadaadu wali kamaan fiirsan xisbigan taageersanahay siyaasadda ka hor wadankii maanta xaalka wadanka siyaasaddiisu waa qasan tahay nin waliba waa ogyahay taa way maxaa soo way kulata leadership labada nin hogaaminaya dalka most of them labadaas waa la degeen dalkii maxaad fariin ugu marinaysaa waxaan u marinayaa inay doorasho qabtaan si isbedel loo helo waayo iyagu intii ay joogeen wax dadaan nagu soo dhiiran jirin baa Soomaaliland ku soo dhiiraday adu waliba waa u buaysaa maxaad uga jeedaa waxaan uga jeedaa hogaamintoodii bay la leeceen oo la baydheen dadka waa la isku waday dadkii kala yaacba war doorasho qabta nasiibkiina ka qaada meeraysanin saasaan leeyahay hadda hadalkaaga waxay ka muuqataa inaad tahay nin mucaarida ma yahay mucaarad xisbiga kulmiyaan taageersanaa waan siiyey foodkayga oo dalkaaban joogay laanna waan arkaa laakiin siday wax u maamuleen inay ka baxeen xaydaankii yaa ku soo celin karaa marka xaydaanka wadankii maanta waxaa ku soo celin karaya ninkay dadku doortaan anigu hebel odhan maayo saddex xisbaa tartamaye waxaad tidhi kulmiyaan ahay hadalkaagana mucaaradnimo badan baa ka muuqata ma la odhan karaa adigu xisbiga wadani baa tahay ama mid ahaan wadani ma yihi wadani ma yihi afkoodood ku hadlaysaa laakiin kuma hadlayo nin kastoo Somalilander uu garanaya maanta dalkii waxa ka jira nin dee riwaayad afar riwaayad ku jira mooyee dalkii dhaqaale ahaan iyo amni ahaanba waxa ku dhacay weakness u soo bu'aya dalkii bargoostay ee adeer raggii meesha joogay dee waxaasi u guroon jiray dho kuwan dambena ka fiirsadaan leeyahay mucaaradka hada annaga wax bedelaynaa annaga cirka iyo dhulka hagaajinaynaa shalay kuwii kulmiye joogay baa wadani tuban maxay xisba doorin gaalkaa diriya daarta kii galay allaale waxay istooriyan xirsi baa ka doobinaya shalana halkanay joogeen maraykankaa wuxuu yidhi Somaliland markiina cigaal la doortay 93 yaa gabadh xogeeyaha arrimaha dowladda Mareykanka tilmaamadan siyaasad kale lahayd ninkii 60kii baa idin hortaagan weyni ka waxaan leeyahay qolada mucaaradka ku calaamadsanna waxa dadka u qabanaysan sheega soo bandhiga qolada meesha joogtana meesha doorasho qabta kii ilaahay u calfaana helaya dadku doortade khasab maaha kii ilaahay u gartaa helaya waxaad ku daraysaa horta adigu ma kuma darayo waxaad isleedahay maanta ka hadal ama aad isleedahay waxaa ismalaaqsaasi ku fiicnaan lahayd ma jiraan ilaahay dalkii ha inoo barakeeyo kow isku duubnina ha la ogaado doorashadana ha loo diyaargaroobo November-tii la cayimay haddii ay suurtagal noqon weydo commissionku inay ku qaban waayaan ayagu waa inay soo jeediyaan farsamo qaabka doorashadu u dhacayso waa in commissionka looga dambeeya haddii wax isbedelaan oo si kalaba muuse intuu madaxweynuhu waqtigii lama ogola doorasho waa doorasho ha sababeeyo isagu waxaanay ku qabsoomi hadduu qorshe macquula keena ka hor waa laga yeelaya waayo xeedhayna wada hor taalla aad baad mahadsantahay